Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa naxariistayda ayaa ah awooddayda ugu weyn. Sheekadan sidan ayay ku bilaabanaysaa. Magacayga waa Axmed. Kanna waa alaabtan ku cayaaro oo aad aan ugu jeclahay. Waxaan jeclahay inaan cuno dhinaca qori, jalaato iyo buskudka sida ciyaalka kale oo facayga ah oo kale. Laakiin mararka qaar waxaan sameeyaa wax yar oo qaladaad ah. Haddii aan war kuu sheego, shalay aniga ma faraxsanayn. Marka sidaa darteed wax aad u edeb dara ah ayaan sameeyey. Waxaan foorjeeyey saaxiibkayga Cali oo aan ka oohiyey dhammaan xiisadihii aan iskoolka ku lahayn. Shalay oo dhan waxaan ku foorjeynayay inuu yahay afarindhood maadaama ookiyaalo uu xirto saaxiibkayga Cali. Markii guriga aan tagay iskuulka kadib ayaa waxaan la kulmay hooyaday. Gacanteeda naxariista leh ayay dhab igu siisay. Markaas ayaa waxay igu tiri, saaxiibka Cali ma kuu faraxsana. Waxaad ku foorjeysana waa wax qalad ah, aadna u xun. Waxaa loo baahan yahay inaad naxariis lahaato, ay igu dhahday hooyaday. Waa ogaa waxa aan sameeyey inuu qalad ahaa, marka hoos ayaan fiiriyey. Markaas ayaan hooyaday weydiiyey waxa laga wado naxariis. Markaas ayaa hooyaday wax macaan waxay hab i siisay. Hal mar ma ahee 2 jeer ayay si xooggan hab ii siisay. Markaas ayaa waxay igu tiri, naxariis waa inaad hadal jilicsan oo dabacsan dadka kula hadashaa. Naxariis waa inaad u turtaa walaasha ama walaalka ama xitaa mukulaal yar ama xitaa shimbir. Naxariis waa inaad u naxariisataa qofkii xanaaqsan oo caytamaya oo aadan la caytamin. Naxariis waa inaad u naxariisataa ama u turtaa qofkii murugaysan oo niyad jabsan oo aad u sheekaysaa. Naxariis waa markaad qadariso oo xushmayso qofkii kaa weyn. Naxariis waa markaad u naxariisato qofkii kaa yar. Naxariis waa markaad caawiso qof walba oo baahi ama dan hayso. Naxariis waa markaad camal walba oo fiican samayso. Hadalkii hooyaday ii sheegtay ayaan aad ugu fikiray. Habeenkii oo dhan waa hurdi waayey. Waxaan sugi waayey inaan dadku tuso naxariistayda iyo edebtayda iyo daacadnimadayda maalintii ku xigtay. Markaas ayaa waxaan si degdeg ah ku go'aansaday in subaxdii marka la soo kaco inaan bilaabo inaan dadka oo dhan u naxariisto. Subaxdii markaan soo kacay, naxariistaydii waa ka dhabeeyey si run ah. Markii hooyaday quraacda ii samaysay, waxaan ku dhahay, waa mahadsan tahay hooyo, maadaama quraac macaan ay ii diyaarisay. Dharkii aan ku seexday oo jileeca ahaa iyo kubeertadii meesha ii taalay, hooyaday maga sugin inay habayso, ee sariirteeda anaa samaystay. Alaabtii aan ku cayaarayayna waddada ayaan ka qaaday. Markii iskuulka aan aaday, dadkoo dhan si edeb leh ayaan kula dhaqmay. Xataa wiil ku cusbaa iskoolka agteeda soo fariiso ayaan dhahay, waana soo dhaweeyey. Waxaan ku caawiyey inuu kala barto iskuulka oo dhan, taasoo ahayd waxa ugu yar oo aan u qaban karay maalintaas. Saaxiibadayda oo dhan waa salaamay. Xitaa qalimaantayda ayaan la qaybsaday asxaabtayda. Markaas kadib ayaa waxaan arkay Cali oo murugaysan oo welina ii uur xumaa. Markaas ayaa si tartiib ah dhankiisa ugu socday, waana raaligeliyey. Waxaan ku dhahay, waa ka xumahay foorjadii shalay aan ku foorjeeyey. Markaasaa Cali ii dhoola caddeeyey, wuxuuna ii dhahay dhib ma lahan. Waxaan gartay in naxariista in ay tahay wax aad u fiican. Markaasaa u naxariistay qof walba, xitaa iskuulka banaankiisa. Meesha lagu cayaara markaan tagay, waxaan si sabar leh u sugay tookadeyda meesha oo wiifogow ku yaalay. Mase og tahay in aan dareemay farxad habka aan ula dhaqmay saaxiibadeyda meeshii lagu cayaarayay. Dadka dhan waan u sabray anoon qofna ku xanaaqin. Waxaana farxad ka helay wiil yar oo banoonigiisa ka lumay oon u soo helay. Qashin aanan aniga tuurin xataa dhulka ayaan ka qaaday, sababtoo ah naxariista iyo camalka fiican qalbiga ayuu iftiimiyaa. Markii hooyaday aan suuqa u raacayne, hooyo cunug yar gaari ku riixaysa in albaabka u celiyey si aysan u dhibtoonin. Markaan suuqa ka soo adeeganayna oo dhinac badan hooyaday ii soo iibisay. Aniga hooyaday ayaa waxaan aragnay islaan waayeel ah oo waddada rabtay inay goyso. Markaasaan gacanta ka soo qabtay oo ku caawiyey inay waddada goyso si nabad ah.
farxad ayaan ka qaaday naxariistayda, markaasaan qof walba u naxariistay. Habeenkii anoo fadhiya qolka fadhiga ayaa waxaan arkay aabbahay oo hurday asagoo TV-ga daawanaya kursigii uu ku jiifay. Kursiga ayuu ku hurday meeshii sariirtiisa uu ka aadi lahaa maadaama aad uu u daalnaa. Markaasaan sariirta ugu soo qaaday kubeerto oo korkiisa u daboolay, wejigiisana dhunkaday. Subaxdii kale walaashay iga yar ayaan kabaheeda u geliyey, waxaana qalbigayga farxad ka buuxiyey markaan arkay sida iigu dhoola cadaysay. Inaan dadka u naxariisto wax adag ma ahan. Ninkii waayeelka dariskeena ahaa oo keligiis noola xataa waa u tagay. Hooyaday ayaa doolasho noo dibtay, markaasaan gabal doolasho ah u qaaday oo u geeyey. Sidoo kale gurigiisana waa u soo toosiyey. Ilaa naxariista waxay leedahay awood aan caadi lahayn. Aniga waa iska dhaafay waxyaabihii dadka aan ku dhibi jiray oo dhan. Dadka ma forjeeyay hadda. Albaabka xoog ma u xiray. Waa joojiyey inaan noqdo qof anaani ah oo nafteyda oo kaliya ka fikiro. Taas cagsigeed dadka oo dhan ayaan wax walba la qaybsadaa. Hadda qofna ma ku qayliyey. Qaylo, aflagaado, maleega maqlo. Naxariista waa wax degdeg lagu baran karo. Markaad wax axsaan ah ka sugin dadka aad axsaan u samaynaysid. Inaad dadka kala caabiso waa waxa ugu yar dadka aad u samayn kartid. Haddaad dadka u naxariisato, adigana maalin aad u baahan tahay naxariis ay dadku naxariisan doonaan. Waana wax Ilaahay nagu amray. Nabigeenan oo nagu amray wax walba oo naxariis ah inaan samayno. Qof aan kaa filaynin oo aad naxariis u samaysato ada wax abaal ah aan ka sugaynin beddelkiisa waa calaamada ugu fiican oo aad samayn karto. Inaad dadka u mahad celiso qofkii axsaan kuu sameeya. Inaad dadka u dhoola cadayso maadaama nabiga uu yiri qofka dadka u dhoola cadeeya waa sadaqo. Inaad qofkii indhoola ah aragto inaad wadada goysiiso. Qashinka dhulka inaad ka qaado maadaama nabiga Ilaahay u naxariistay uu yiri dhulka oo qashinka laga qaado waa sadaqo. Haddaad aragtid xayawaan ama qof ooman ama baahan inaad wax siiso, xataa eeyga haddii uu yahay oo biyo aad siiso, ajar badan ayaa laga helaa. Alaabta guriga dhaqitaankiisa ama waxay dhulka yaal inaad ka qaado oo caabiso waalidkaa. Inaad u sheegto walaalaha ama waalidka inaad jeceshahay. Inaad u mahad celiso qofkii axsaan kuu sameeya. Inaad hadiyad siiso asxaabtaada. Inaad albaabka qofka u celiso qofkii albaabka soo galaya. Waxaasoo dhan waa wax tusinaya naxariis aadna u fudud ood ku samayn karto qof walbo. Caruurey, sheekadii Cali iyo Axmed halkaas ayay noogu egtahay. Intaan sheekada kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum.